رسابك قبل كاود محمد عبد الله جامع بوخ يا ماير كدقمده بالقبل محمد عبد محمد شينه ayaa maanta shaaciyay akoonka rasmiga ah ee lagu shubayo lacagta loogu talagalay dhismaha jaamacadda gobolka Hawda mas'uuliyiintan waxa ay bulshada ugu baaqeen inay ka qayb qaataan hirgelinta mashruucan waxbarasho ee aadka muhiimka ugu ah gobolka Hawda inuu shaacino akoonkii iyo saadii dahabkii lambarada akoonada ahaa ee lagu soo diri lahaa qaran ururinta laga hirgelin doono jaamacadda dhismaha jaamacadda gobolka Hawda waxaan halkan uga mahadnaqayaa qurba jooga diyaarka oo ah si ay uga qayb qaadan lahaayeen qaranka ama dhismaha jaamacadda gobolka Hawda University aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxay la soo xiriiray dad badan oo qurba jooga kuwaas oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dhismaha mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqaynaa waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa ganacsatada diyaarka iyaguna oo ah inay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda oo iyagana dhowr qof ila soo hadleen waxaan doonaynaa inaan ka soo qayb qaadano insha Allah waan u mahadnaqayaa ganacsatada baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa kale cidii ka qayb qaadatay maalintii dhawaato sidii quruxda badnayd ee sharafta badnayd ay uga soo qayb galeen uguna dhawaaqeen nin waliba wixii uu karayay aad iyo aad baad ugu mahadsantiin baan leenahay jazaakumullahu khayr halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba idinku bedelaan leenahay qolada maalintii dhawaato ku dhawaaqday waxaan kaloo baaq u dirayaa dhammaan qurba jooga iyo ganacsatada iyo cid kasta oo awoodi karta inay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda Hawda University inuu ka hirgelin doono magaalada Beledweyne ee gobolka Hawda waxaan ilaahay uga mahadnaqayaa sidii quruxda badneed ee ugu qabsantay maalintii dhawaato waxaan hadda imka aan shaacinaynaa akoon lambarada ka muuqda imka shaashada idinka muuqda marka waxaan leenahay qof kasta oo ka soo qayb qaado waan ku mahadsantiin ka qayb qaadashadiina dhankay ka baxdaa waxaan jiray barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen kulli waxa jira weydiimo badan oo maalintii dhaweytoole ee halka ku qabanay shirkii jaamacadda gobolka Hawda balan qaadiyo iyo waxa jiray qaaran ururin aan halkii markaa kaga dhawaaqay badana qurba joogta iyo ganacsatada iyo dadku waxay soo weydiinayeen in akoonkii iyo halkii lagu soo shubay lacagta kulli tole waxa u baahanahay in wax walba si cad ay u cadaadaan oo si isla xisaabtan leh oo wixii soo galay iyo marka hawshu bilaabanto sida wax u baxayaan bayna cadaataan u baahanahay halkan maanta waxaan ka cadeynayaa inaan furnay sida halka ka muuqata kulli shaashada la soo dhigi doona akoonkii oo ka ah iyo saadi iyo dahabtii lagu soo shubayay qaranka halkan waxaan niga cadeynaynaa in qof kasta oo qaranka soo shuba iyo akoonkeenaasi uu noqon doono mid daahfuran oo halkaasi qof kastaba uu kala socon doono qof kasta oo lacagta soo dirana aynu samaysan doono WhatsApp group intaasi ay ku xiriirdo xisaabtaasi iyo qof kasta oo wax soo dirana loola socdo xisaab daahfuran ay noqoto maanta laakiin halkan waxaan u fadhinaa waxa weeyaan sidii isku ogeysiin lahayn in akoonkii iyo saadii dahabtii dhammaantood ay furan yihiin hadaba waxaan leeyahay cid kasta oo ku dhawaaqday halkan cishay dhawad kaga dhawaaqday qarankaasi inay bixinayaan inay ku soo shubaan akoonkaasi cid kasta oo hadda u diyaarana iyaguna ay raacaan oo halka ku soo shubaan aynu si isla xisaabtan leh aynu halka uga wada socono sidii jaamacadeena aynu dhisan lahayn gacmaha isku qabsan lahayn hawshaasina hawl fiican oo wanaagsan oo isla xisaabtankeega ay noogu noqon lahayd aynu halka ka wada socono maanta intaanu fadhinaa waa intaas in is ogeysiinana barbarkay ka baxdaaba oo bakayla qaleen Cabdiraxmaan Samriye telefishinka qaranka Soomaaliland ee gobolkaasi